dhiigkarka waa dilaaga qarsoon. Siddeetan boqolkiiba dadka qaba dhiigkarka calaamado ma dareemaan. 20% laga yaabo calaamadaha isku arkaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu waa Dr. Ibrahim Cabdiraxmaan, Dr. Fuad Cabde, dhakhtarka cudurrada guud iyo urka jirta. Maanta xalqada waxaan sharxi doonaa su'aalo aad soo weydiisay oo la xiriiro oo aad kaga bogan doonto xanuunka dhiigkarka. Waxaan soo dhaweynayaa marka su'aasha ugu horreysa fadlan. Su'aasha kuwaad waxay ku leedahay doctor, waa maxay dhiigkarka? Dhiigkarka waxaa la yiraahdaa marka uu bato cadaadiska dhiigga iyo xididada. Su'aasha labaad, sidee buu u dhashaa ama uu u yimaadaa dhiigkarka? Dhiigkarku ma laha sabab gooni ah. Sababtaasoo dhiigkarku wuxuu yahay 80% dadka ayagoo isku ogeen ayuu isbitaalka yimaada 20% ka soo muuqataan calaamadaha. Marka sabab gooni ah oo keento dhiigkarka ma jirto. Imise qof ayay hay'adda caafimaadka adduunka sida WHO sheegtay inay la nool yihiin cudurka dhiigkarka? xanuunkan hay'adda caalamiga ee caafimaadka ee WHO waxay ku qiyaastaa adduunka inay qabaan 1.8 bilyan oo qof inay la dhiban yihiin xanuunka dhiigkarka. Maxay yihiin sababaha ugu waaweyn ee keena ama keeni kara dhiigkarka? Dhiigkarku sabab gooni ma laha. Sababaha ugu badan oo dhiigkarka keeni kara waxaa waaye midda koowaad wuxuu aad ugu bataa qofka mar walba uu sii weynaado, da'diisa sii weynaato. Midda labaad sidoo kale dhaxal uu noqon karaa. Midda saddexaad waxaa keeni kara cayilka fara badan. Midda afaraad waxaa keeni karo walwalka iyo walbahaarka. Sidoo kale waxaa keeni karo balwadda qaasatan marka qofka sigaarka aad u keeno. Su'aashayna kale, sidee ay da'da iyo dhaxalka doorka ay uga ciyaaraan dhiigkarka maxay yahay? dhaxalku maadaama aan soo sheegnay calaamado gooni inuu sameeyaan, dhaxalku wuxuu ku keenayaa qofka waalidkiisa kale hadduu leeyahay sidaas oo dhaxal ahaan ugu soo gaara. Da'da mar walba qofka uu weynaado waxaa yaraanaya xididadii dhiigga qaadayay iyo sidii wadnihii mar walba qofka sii weynaado marka waxaa yaraanaya maadaama aan dhahnay waa cadaadiska u dhaxeeya dhiigga iyo xididada labadooda waxaa ku imaanaya marka isbedel badan. sababtaas marka waxa ugu badan oo ku keenayso da'da iyo dhaxalkana waxaa waaye aabbaha qabi jiray hooyada qabi jiray inay faamilo qaar u jilcanaadaan in xanuunkan ay qabaan. goorma ayaa si rasmi ah qofka loogu sheegi karaa inuu qabo dhiigkarka ama la dhihi karaa waxaad leedahay dhiigkar? dhiigkarka laguma xukmi karo qofka hal mar oo dhiigga laga cabiray. inaad dhahdo qofka dhiigkara qabtaa waxaad u baahan tahay 2 maalin oo isku xigto, maalin walbana aad 3 jeer ka cabirto, uuna ka bato mar walba kan kore 140, kan hoosena uu ka bato 90. waa imise cabirka caadiga ah normalka dhiigga qofka pressureka markii la cabiraa? waa su'aal fiican oo waxay xadidaysaa su'aashii hore. dhiigga kan kore mar walba waxaa laga rabaa 120, kan hoosena waxaa laga rabaa 80. maxay yihiin calaamadaha lagu garto dhiigkarka? calaamadaha imaan kara marka oo qofka uu qabi kara maxaa ka mid ah? qofka wuxuu yeelanaa madax xanuun u badan qadaadka. qofka wuxuu kaloo yeelanayaa in wadnaha uu qaracmo ama chest pain, feeraha xanuun uu dareemo, dawaqsan inuu yeesho, wareer iyo mantag inuu yeesho, wadna qaraac ziyaado inuu yeesho. calaamadaha ugu badan ee lagu arki karo qofka waa intaas. maxay yihiin dhibaatooyinka ka dhalan kara haddii qofka lagu sheego dhiigkar misane aanan la daaweynin dhiigkarkaas? dhiigkarku maadaama aan dhahnay waa xanuunada qarsoon oo ka mid yahay. qofka waxaa laga yaabaa already dhiigkarka asoo laga gacan ku soo dhuftay in lagu keeno. marka dhibaatada ka imaan karta dhiigkarka waxaa ka mid ah looga gacan qofka inay dhacdo, maskaxdeeda dhiig ku furmo, af Soomaali waxaa lagu yiraahdaa faali ama stroke. waxaa kaloo imaan kara qofka inuu wadnaha istaago, looga gacan ay dhacdo. sidoo kale wuxuu keeni karaa qofka inuu ku yimaado madax xanuun ziyaada ah, kabaabay inuu yeesho, gacmaha iyo lugaha uu yeesho. su'aasha ugu dambeysa, calaamadaha soo sheegnay doorku ka ciyaaro dhaxalka, doorku ka ciyaaro da'da, waxyaabaha keeni karo. markii qofka intaas la soo sheego, dhakhtar nooc ah iyo la talinta uu ka raadsanayo ugu hagaagi karo dhakhtarka? waa mahadsan tahay.
calaamadaha aan soo sheegnay haddaa isku aragto ama isaga shakisan tahay dhiikar waxaa isbitaalka Uwais Cancer Hospital ugu diyaara dhakhtarka cudurrada guud iyo warku jirta Dr. Ibrahim Abdurrahman Dr. Fuad Cadde oo aniga ah waxaan rajeynayaa insha Allah intiisan dhibaatada ama complication u simaan dhiikarka noo imaato talo ku siino insha Allah taala waa mahadsantiin